waxay cadaynaysaa aakhira marka la tago quraanka umaani doona suuratul baqara u horeysa aala cimraan baa ku xigta dadkii adduunyada barani jiray ilmahooda bari jiray akhrini jiray ku dhaqmi jiray way u doodi doontaa suurada baqara waxay leedahay markii la gooyay xariiriyeen markii liiga tagay barteen markii li nacay akhriyeen ilaahu shafaacanahay xadiis kale waxa ku soo aroray soonka umaani doona quraankana uu umaani doona as-siyaamu wal qur'aanu yashfa'an labada way shafaaci doonaan soonka baa hadli doona markaas wuxuu dhihi doona ilaahu cabidi waan u diiday raaxaysi waan u diiday wuu oomay wuu gaajooday ilaahu inuu shafaacan raba waxa leeyahay waan shafaaca quraankii baa soo istaagi doona wuxuu ilaahay habeenkii hurdada ka tagay in badan buu akhriyay saasa lagu shafaaca markaasna wuxuu al-qur'aan as-siyaamu wal qur'aanu yashfa'an ogaada kitaabkana aakhirana la weydin doonaaye asaga baa ama janno ku galayna ama naar ku galayna hadda dad muslimiin baan nahay nimayo kitaabkeena aan qabsano asagana aan ku dhagno sharafna aan ka raadino waxaan u soo laaban macallimiinta jazakum khayr dadaalkiina si la laaba waxaan idin sheegi dadka ugu qiimo badan waa idinki ninka dadka ugu qiimo badan gabadha dadka ugu qiimo badan waa ninka kitaabka la barto dadkana baro subhanahu salawaatullaahi wa salaamu alayhi khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama dadka waxa u khayr badan ninki diinta asaga barta dadkana baro hadaa ku gaajooto nabi maxamed gaajooday hadaa ku rafaado nabi maxamed ku rafaaday hadii lagu xiro nabi maxamed baa loo xiray hadii lagu fiijiyo nabi maxamed baa loo fiijiyay hadii lagu dilo asxaabta nabi maxamed baa loo dilay hadii lagu daqay nabi maxamed baa loo daqay hadii qaxooti laga dhigay nabi maxamed qaxooti laga dhigay nabi maxamed u fiis saaxibkiisa baa lu cunay asay Abubakar markaa laga soo celiyo god bay galeen godkii markay galeen waa dulduleelay Abubakar intii duleysho dharka galiyay godkii soo harana uu ku seexday abeesa Abubakar cuntay oo fiis waa subhana sallallahu alayhi wasallam burgiisi baa laga soo celiyay meejo ku dhashaa laga soo celiyay markaas uu buur galay ibkaas fiis Soomaalida kiitu Taif aaday oo caruurta iyo haweenka iyo makaska loo daba kaasa nabiga dhagax laga badiyay markaas uu nabiga soo dhaxda joogo oo wareersan yaa malag la soo hadlay xure malakul jibaal baan ahay wixii kugu dhacay waan arkaa qoomkaada say ku galeen waan arkaa waxaan rabaa qolan inaan baabiyo buuraha laba dhinac uga keen oo diga ka dhigo nabiga xure maya ibka la gaartay u fiirso 70 nin oo asaga la socota hal meel la dhigay asagana waa la daqray maxaa markaa hadii adiga aagajooto suubanaha gurigiisa gabadhay 3 bilood dab laga mashidin adigana laba maalin hadaan gurigaada dab laga shidin waa dhaqaajinaysaa biil ma la keena iyo ma shaqaysatid iyo suuqa ma gashid iyo maxaa ku joojiyaa la taaganto afka awlka kicinaysa oo saxaabiyaash ma ka fiicanta ya hadaa gaajoodo diintaada ka baxaysa ma badaha ku halaagsamaysa ma isqaabinaysa ma kaniisadaha u galaysa maya hadaa gaajood hortaada la gaajoodo Soomaalidan arkin nabi maxamed oo soo baxo banaan ku soo baxay Abubakarna banaan ku soo baxay Umarna banaan ku soo baxay saddexdiiba maxaa loo soo baxay gaajo hadaa nabi maxamed ka fiican Abubakar yaa ka sharaf badan Umar ku ahaa waa ninkii nabi u yiraahdo nabi soo bixilaa Umar baa noqon lahaa hadduu Umar hadii uu joogi lahaa iska tag uu aado suuq mugdina shaydaanka joogi suuq mugdi kulli uu soo carar lahaa ibn Sirin buu ku soo xaroon lahaa ibn Sirin hadduu maadana uu sii carar lahaa waa ninkii darajada gaar tajaba gaajood marka waxa leeyahay macallimiinta ogaada dadka ninka u qayb badan in badan ma fahansanaysaa ninka waxa arki diintu wada dadku barahayaa hadduu ku gaajoodo xoogaa rafaado sibuu isku wariyaa ka sareeyaa khayrukum adiga niyada wanaagso yarka waxa kamid ah khudbadiisa ikhlaaska lagu dadaalo inay dareetaa ka noqoto niman yahu amaanada haysiina ka soo bax waxan waa amaano waalidkii wuu soo waday cunuga weynii keenay maskaxda baan ila keenay waxaan rabnaa juhdiga hala sii laabo waxaan ogtiin waa lisweydin doona caruurta waa lisweydin doona maalinta qiyaamo hal ugu dadaalo waqtigooda hala ilaaliyo juhdi hala bixiyo la yukallifu nafsan wix adiga ka bato aadan karaynin tabarumaysi ila hala dadaalo kelimada waxaan ku soo gabagabeynay waan dheereeyay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqno sharafta maanta aan haysanana aan ogaano kitaabka la haysana wasiyada dardaaranka wuxuu yahay kitaabka weel loo noqdo asaga hala difaaco nabi sallallahu alayhi wasallam badaa diinu qariiban wa sayauduha qariiba diinta qariibay ku bilaabata qariibayna ku noqonaysa had intay gash arwakaas muslim meel degan oo sax soo had
ولا بربرية كل ولا قحوتي محل على تقال دين تقال عندنا وحكمين عندنا وحمي سيين إسرائيل ما صار لك تقال كتابك هلا قريب استاج قوله وحن كل شيء هذه واتجيسا آخر آديسا لا كتك قبر دين له ويل دين له والله واتجيسا هذيك بري ودقاجنا يساي محن كتكتا دين وقتك قويها وقتين هدارته بابورها وقتين هدارته لعقها وقتين هدارته لا محن وقتكتا دين وقتك أيكو الله كحرم الله أقانان كوسو دعينين إسلام كدعين كتك أيكو قالها كتري أيكو سي دبي داو عيلسه سلاد الله ما تكدانو ما صومانو أبا ما يقانانو هويا ما يقانانو إسلام ما أقانانو كتاب ما أقانانو توحيد ما أقانانو نبي ما أقانانو وحي أقانانو كوا بدنا سالي مجال الجوال مركا وحاليا هلا دلالو إلهي سبحانه وتعالى هلا عبصده إلهي وحان كبر إنسان هل كان هو كل جنة سين هو كل ميو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبالله التوفيق. الله بارك يا شيخ محمد عبد